iska ilow ciriiriga ka jira wadada wadnaha iyo isgoysida bakaaraha iyo holwadaag. taas waa fariinta kaliya oo lagaaga keeni karo jidka jaalasiyaad, sababta oo ah ciriiri dhaaf ciriiri wuxuu hadda saacad walba ka dhex jiri karaa jidka dheer ee kuliyadda jaalasiyaad iyo warshada caanaha u dhexeeya. haddii aad rabtid inaad si dhab ah u fahamto heerka uu gaarsiisan yahay ciriiriga ka taagan wadooyinka caasimadda, halkan waa meesha kaliya oo kuu iftiimin karta. celceliska isugeynta inta jeer ee wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka caasimadda ay jaam noqdaan weli kuma filna in lala barbardhigo ciriiriga halkan oo qura ka jira. balse maxaa u wacan ciriiriga halkan ka taagan? wadadan waxay dhacdaa bartamaha laba xero oo ay degan yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed. shacab iyo ciidanba waxay u tahay marin muhiim ah. laga bilaabo kuliyadda jaalasiyaad ilaa isbitaalka xoogga oo laamigani saaran yahay, waxaa hurweyto u soo aada baabuur badan kuwaas oo waayay doorasho aan iyada ahayn. dhowr sano ka hor wadadan ma lahayn muhiimad maritaan oo aad weyn, balse waxay weligeedba ahayd dariiqa ugu fudud ee looga soo dhaco magaalada inteeda kale. tan iyo markii la xiray jidka ka dega aagga wasaaradda gaashaandhigga ee gees mara warshada caanaha, laamigan ayaa noqday dariiqa qura oo ay ku kulmaan nooc walba oo gaadiid ah. dhismaha jidka dheer ee afgooye oo gebi ahaanba la xiray waxay sidoo kale keentay in baabuurtii mari jirtay aagga X control ay halkan kusoo yaacaan. ha yeeshee ma ahan oo keliya xiritaanka iyo hakadka ku yimid jidadka soo gala laamigan sababta ugu weyn ee keentay ciriiriga daran ee ka taagan. tan iyo markii dib loo dhisay kaliya ma uusan u noqon jidmar dadweynaha intiisa kale, balse waxaa kala wareeg laga hubiyo gaadiidka soo gala caasimadda iyo barkontarool laga ilaaliyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhigtay ciidamada ku jira labada xero ee jaalasiyaad iyo Damaanyo. tani waxay sababtay in safka loogu jiro hubinta baabuurta qaar ay dhaliyaan ciriiriga. waxaa kale oo jira caratuur u muuqda dhufays oo ciidamadu ka qodeen docda laamiga, kaas oo dadka lugmaalka ah ku qasbaya inay mararka qaar dhex socdaan laamiga. balse tan ugu daran ayaa ah dhagaxyada lagu teeday dhinaca kuliyadda jaalasiyaad kaga aadan laamiga oo keentay in baabuurta labada dhinac isku firdhaafaysa ay adeegsadaan halkii dhinac ee looga baneeyay laamiga. xaqiiqdii tani waa ku ceeb iyo mas'uuliyad darro dowladda dhexe iyo maamulka gobolka oo si cad iskaga indhatiraya dhibaatada joogtada ah ee jidkan dheer ka taagan. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay baaxadda ay ku fadhiyaan xeryahan kusoo jeeda laamiga miyaan weli looga maarmi karin in labada dhinac ee jidka loo baneeyo dadweynaha iyo gaadiidkooda si loo helo safar raaxo leh? maxaa keenaya in dhufays iyo dhagxaan la dhinac dhigto waddo laami ah iyada oo maanka lagu hayo inaysan ciidan oo qura ahaanaynin kuwa adeegsanaya, balse ay yihiin dadweynaha oo dhan? jawaabaha su-aalahaas waxay u baahan yihiin falcelin degdeg ah oo aan ku ekayn hadal oo qura.